Somaliland tan jeclahay ha noolaato Somaliland teeda qurux badan ha noolaato ubadkeeda iyo dalkeeda iyo hooyooyinkeeda iyo aabayaasheeda iyo dadkeeda dhan ha noolaadeen waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa ilaahay igu beeray Somaliland waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa ilaahay igu beeray dalka kaliya ee Soomaali degan tahay ee aan weligiis isticmaal galin mustacmarad maynaan ahayn waxaa mustacmarad ahaa dalka dhinaca bari naga xiga ee Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysan jiray colony buu ahaa waxbaad barateen geography iyo history waad barateen colony Talyaaniga bay ahayd Soomaaliya Djibouti waxayd colony Faransiisa Somaliland waxay ahayd British Somaliland protectorate waata la isku dhaafay waataynu kaga wanaagsanahay waata horumarkeena uga sii wanaagsan yahay Somaliland waxay ka weyn tahay 18 dal oo Afrika ah bay ka weyntahay waxay ahayd Somaliland dalkii 12aad ee xorriyadiisa oo buuxda qaata 26 June 1960 markaa Somaliland xorowday ee aynu xorta noqonnay 26 June Soomaaliya weli mustacmarad bay ahayd inamay dhalina inaga dhalay inaga ka daaweyn inaga uga horreynay inaga ka wanaagsan waxa kaliya maanta inaga wanaagsan yihiin waxa weeyaan beenta Somaliland nacaybka inaga wanaagsan yihiin waxay kale inaga wanaagsan yihiin kuraasida ay midabka dahabiga marinayaan halkay ka marin lahaayeen dhiigii dadkii Somaliland ay dileen halkay casaan marin lahaayeen dhiig marin lahaayeen dahab bay ku rinjiyayaan oo ay madax isku moodaan oo ay suraadiin isku moodaan oo ay madaxweynayaal isku moodaan madaxweynaheena waxaa doortay 400,000 oo dad oo shacabka Soomaaliland doortay farmaajo yaa doortay 185 qof intii naasa ka badan halka joogta intii dooratay markaas isku moodaya madaxweyne wuxuu madaxweyne ku noqday kursi uu iibsaday wuxuu madaxweyne ku yahay marka la yiri madaxweyne tahay uu rumaysta qisadii waan maqasheen Soomaha the king has no clothes Suudaanku dhar ma gashana Suudaankii qaawana qisiis waan maqasheen Soomaha waa tiyo kale inuu dhar huban yahay buu ismoodaa waxa ka dhex muuqda awoowayaashiinkii uu dilay lafoodii baa ka dhex muuqda imisa awoowayaasha lagu dilay Hargeysa imisa malka durduro ku aasan awoowayaashiin gacanta taageenta awoowayaasha dhintayo yaa og bareeg waa kuwaase waxa ka dhex muuqda lafihii awoowayaashiin uu malka durduro ku aasay waxa ka dhex muuqda kursiga dahabiga waxa ku rinjiyaysan caruurtii dhiigga laga miirtay ee haragoodii lagu tuuray halka kuwidina leeka ee dhiigga laga miirtay marka iyagu maqaadiir ku timaado wabigu ku fataho dadkooda lacag uma helaan ay ka hagaajiyaan oo ka basriyaan oo ka xiraan oo ka moosaan laakiin maxay lacag u helaan maxay kharash u hayaan Somaliland cadaawadeeday u hayaan waxay lacag u hayaan markii caruurta Somaliland inay faktaan oo been u sheegaan oo iraan jannaan ku jirnay noogu kaalay jannada waxay kharash ku bixiyaan inay harkiina idinka saaraan waxay u quuri laayihiin Somaliland in ubadka caynka u qurux badan u kaco waxay quuri laayihiin Somaliland nidaamka aynu dhisanay dawladda aynu dhisanay dalka aynu hagaajisanay waxaynu haysanay inaga samaysanay Somaliland calankeeda ku faan tawxiidka ku faan diinteena ku faan dalkaaga ku faan quruxdiisa ku faan nabadgelyadiisa ku faan